waxaa jirtay magaalada Burcaan maalintii inta badan Hargeysa deganaa laakiin dib waa kulkaygu markasta baan tagi jiray aniga waxa afad fadhiya oo inama la jooga ayaa inaan agteeda fadhiya telefoon soo garaaca dabeedna telefoonkii uu qabtay dabeedna mar adigu waxbuu ku hadlay runtii af Soomaaligiisa inuu hadlayo sheekaynayo waan garanayaa qof la hadlayo aduu markuu dhigay un baan si caadi ah ugu weydiiyo ku dhibin cid baa waxba soo qornay marka suuli ma yahay jingadii baa ila hadlaysay mid indha barara oo cir iyo dhul midna aan ahayn oo braled ka saaran ayaa guriga ku maraataynaya waxaan ku yiri aniga imka imanayee faraak la laabana ka dacsi adigu sheegay bal sheekada fasirada bal dadkuna hayna la dhageysteen wuxuu yiri jingadu maxay noqotay marka wuxuu yiri jingadii baa ila hadlaysay mid indha barar oo cir iyo dhul midna aan ahayn oo braled ka saaran ayaa guriga ku maraataynaya deedna waxaan ku yiri faraak la laabo aniga ka dacsi doona dabeedna waxaan ku yiri maxay marka ujeedadu xaaskii bay haydo bal ifahansiid anigu waxaan waaba igu adag tahay dabeedna adigu markaan sheekadii fahmay waxay noqotay jingadu waxaaskii bujeeda ku indha bararkuna waa reer miyiga ayay yidhaahdeen indha bararka reer miyiga loo yaqaanay indha bararka loo yaqaanay midaan ciriya dhul midna ahayn oo braled ka saaran oo dadka khayra Soomaad arag buufiska ayaan dharkiina sitaa midaan ciriya dhul midna ahayn oo braled ka saaran midaan ciriya dhul midna ahayn oo braled ka saaran marka waa qofka buufiska qaba marka waa buuf ayaa guriga ku maraataynay marka waa mid ilmaadaydiin oo miyi ka yimi dabeedna gabadhii bay la soo too lacagtii waxay leedahay ninkii bay halkan maraya oo guriga ku soo noqnoqday dabeedna marka waxaan ku yiri faraak la laabo maraatayntuna waa maxay marka maraatayntu way gu wareegayeen guriga ku wareegayeen marka ana ka dacsina maxay noqotay ana ka dacsiyay ana ka kaxayn doona faraana ka la laabo adigu dana u gali faraana ka la laabo waa dana u gali sheekooyin dabeedna waxaan ku yiri war waxa soo dhan gartay maxaa laakiin jingadu waxay leeyahay qalfsan bay noqotay maxad gabadhaada jingada ugu quudha wuxuu yiri guriga marka la dhiso soo dadka wax walba waxa la sugaa inta dadku imanaya jingada la saaray marka aniga waaba ii harkaygiyo jingadaydu waaba hadal maarifo waa harkaygii way dugsanayo waaba aniga ii jingad oo marka halkaana wixii aan dhibsanay aan la yaabanaa isla wuxuu gabadha jingada ugu sheegay waxa uu sheegay inay dugsiye tahay inay dugsiye hareeya dugsiye oo ay aqalka dadkiisii ay tahayba marka sheekooyinka loo yaabay runtii waa sheeko la yaab leh qosolkeeda